بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمد الصوماليات سماج على الميلة joogtaan ba sii gudbiya maxaa ku raada barnaamijkan waxaan ku soo qaadanaynaa laba qodob ceergaabo iyo xaaladihii u dambeeyay iyo waxa weeye xasan sheekh iyo axmed madoobe waxa weeye marka sii gudbiya insha Allah haddaan ku horeyno ceergaabo iyo xaaladihii u dambeeyay ceergaabo waxa weeye ogaalkii way deganayd maanta waxaana lagu jiray waxa weeye meedaaskii meedadkii in la aaso waxaan kaloo aragnay waxa weeye kooxdii waxa weeye SNM u joogtay magaalada waxa weeye gudoomiyaha ugu magacawnaa iyo kii maayirka ugu magacawnaa oo war saxaafadeed qabtay waxaan kaloo arkaynay odayaal dhaqan oo gobolada waqooyi maxaa ku halkaas waxa warar ka soo dirayay wararkaas oo aynu bixinay wararkii sooxisada ahaa ee weligoodba reer ceerigaabo lagu sooxin jiray yaa reer ceerigaabo waa dhaleeyo reer ceerigaabo waa walaalo reer ceerigaabo waxa weeye waa abtiyaa reer ceerigaabo waa xididii xigaalo reer ceerigaabo waxa weeye caalamka la mid maaha reer ceerigaabo xeer bay ku wada joogaan reer ceerigaabo ma kala maarmi karaan hadalladaas waxa weeye lagu beer la xawsan jiray waxa weeye qoladan bariga ceerigaabo degan kuwii ayaa la soo diray marka su-aasha isweydiinta li waxa weeye maxaa sidii oo kale ayay odhan doonaan raggii odhan jiray waxa weeye maxaa ku dhahday nabadgelyaanu haysanaa ay suuxin jiray hadalladaas waxa weeye maxaa ku dhahday dhalanteedka ahi marka war saxaafadeedku uu dhammaado waxa weeye wiilasha iyo maxaa ku dhahday ciidamadaba la adeejin jiray oo la odhan jiray waxaad noqotaan sameeya miyay maantana yeeli doonaan oo ay qaadan doonaan mise way baraarugi doonaan oo waxa weeye waxay fahmi doonaan waxa weeye maalinta dambe inay iyagu ku xigaan kuwa maalinta dambe la dhagraya inay iyaga noqon doonaan masaasay fahmi doonaan waxa weeye maxaa ku waa su'aal daaweyn laakiin fariinta aynu leenahay waxa weeye maxaa ku dhahday Soomaalidu waxay tiraahdaa beentaada hore runtaada dambe u daran tahay maalin walba haddaad tiraahdo intaad tiraahdo la ii soo gurmado haddana aad tiraahdo berito waxa weeye maxaa ku dhahday waxaan nabad baan doonayaa maalinta dambe cid kuu soo gurmanaysaa ma jirto dadka shacabka ah ee kula jooga inta ka hadhayna way kaa dareerayaan adiga iyo maxaa ku dhahay xabaal iyo ninkeedii loo kala tegmayno adiga iyo asana baa lisaga kiintegayaa marka waxaan leeyahay odayaasha magaalada dadka ha lugoynina reer SSC ama dawlad ha noqdeen ama shacab ha noqdeen ama waxa weeye rag ha noqdeen ama dumar ha noqdeen ama qurba joog ha noqdeen iyo waxa weeye reer ma garanaysaa maxaa ku dhahdaayey maakhirba dhammaantoodba rag iyo dumarkooda dhallinyarada iyo waayeelkaba waxaan leeyahay maanta ayay tahay maanta waa kama dambays weeye wax allaale waxaad haysaan maanta ceerigaabo in lagu kala baxo weeye ceerigaabo ama inay xorowdo ama ceerigaabo laga wada guuro weeye labadaas mid weeye mar hore 3 bilood ka hor bay ahayd markii aan idhi ceerigaabo 3 mid bay noqon doontaa meel waxa weeye maxaa ku dhahday ma garanaysaa caqligu shaqeeyo oo qolo waliba deegaankeeda iyo qaybteeda ay maamulato meel waxa weeye maxaa ku dhahday ma garanaysaa nin waliba awoodiisa uu isticmaalo oo waxa weeye maxaa ku dhahday ama lagu kala adkaado qolo looga guuro ama ay baaba'do oo meesha laga wada guuro saddexda mid bay noqon doontaa ceergaabo dawadeedu waa taa weeye ceergaabo dawadeeda dhabta ahi waa taas weeye marka ragga waxa weeye maxaa ku dhahday harti ma garanaysaa maxaa ku dhahday magaalada ceergaabo deegaanka u leh waxa weeye maxaa ku dhahday asaasayaashii magaaladana waxaan leeyahay dadka ha lugoynina oo waxa weeye maxaa ku dhahday ha jabin magaca ha dilina oo sharafta in badan baad waxa weeye maxaa ku dhahday dadka aad waxa weeye bahdisheene ka daaya dadkiina bahdilaada iyo maxaa ku dhahday dhagarta aad u dhigaysaan ilaahayna ha idin garan siiyo baan leeyahay ninka la yaro xasan sheekh la yaro anigu in badan baan ka hadlay in badan baan sheegay xasan sheekh inuu yahay dictatorka Soomaaliya inuu yahay waxa weeye siisiga Soomaaliya inuu yahay Ismaaciil Cumar Geelaha Soomaaliya waxaadna aragtaan in maanta waxa ka dhacay baarlamaanka baad arkayseen waxaad ogtihiin dastuurkii dalka inuu waxa weeye maxaa ku dhahay gabigiisa baabi'iyay oo isagu uu shaadh uu leeyahay uu ka tashay waxaad ogeydeen shalay inuu lahaa maxaa ku dhahday reer Puntland khilaafkii ka dhaxeeyay loo joojin maayo waxaad kaloo ogeydeen doraad intaanu maxaa ku dhahay xilligii maxaa ku dhahday maxamed cabdullaahi farmaajo axmed madoobihii shalay weeye uu magaranaysa caleema saarayey
ay waxa weeye maxaa ku dhahday laga celin la'aa ee la magaranaysaa maxaa ku dhahda oo ay lahaayeen dastuur buu ku taagan yahay xaq buu magaranaysaa u leeyahay inuu isdoorto maamul goboleedyada waa in doorashadooda loo madax banaaneeyaa maanta maxaa la leeyahay shalay waxaa la lahaa waxa weeye maxaa ku dhahda xorba waa in loo xoreeyaa maxaa ku dhahday barnaamijkiisa laakiin maanta waxaa la leeyahay xor ma noqon karo maanta waxaa la leeyahay waa khaayinul wadan maanta waxaa la leeyahay waa in la soo qabto maanta waxaa la leeyahay marka ummadda Soomaaliyeed baa ka garnaqda waa inay ummadda Soomaaliyeed ka garnaqdaa ummadda Soomaaliyeed waa inay ka garnaqdaa xasanka maanta iyo kii shalay waxaan leeyahay waxa weeye maxaa ku dhahday xasan waxa uu hadda Axmed Madoobe samaynayo xasan isaga ayaa doonaya oo hadda ku shaqaynaya oo naftiisa la raba ma waynuna ka aragno shalay waynu ka aragn waana arki doontaan ummadda Soomaaliyeed marka ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay dadka Soomaaliyeed dalkooda waa inay u kacaan dadka Soomaaliyeed dalkooda waa inay badbaadsadaan dadka Soomaaliyeed dadkooda waa inay daba qabtaan dadka Soomaaliyeed waa inay ka weynaadaan nin dan leh oo dan gaara leh oo isagu danihiisa fushanaya oo aan ummadda u danaynayn dad aan u danaynayn oo dal u danaynayn oo diin u danaynayn waxa weeye dhammaantoodba inaynu magaranaysaa maxaa ku dhahdaye aynu meel uga soo wada jeensano weeye waxaynuna ogaanaa waxaynuna u baahanay maanta yacni maxaa ku waxaan arkayay Faarax Macalin oo hadal uu magaranaysaa runtii ay waxa weeye odaynimo ka muuqato yiri ma aan jeclayn buu yiri Axmed Madoobe inaan taageero laakiin maanta waan ku qasbanay inaan taageero buu yiri sidaas si lamid ah anigu Axmed Madoobe ma aan jeclayn inaan taageero laakiin maanta waxaan arkaa ninka la yiraahdo Axmed Madoobe waa gardaran yahay oo inuu doorasho kaligeed sidan uu qabsado isagu oo aanu cidna wax ka weydiin kuma faraxsani laakiin waxa kale oo aanan ku faraxsanayn in maxaa ku dhahday mid isaga lamida oo wadada uu Axmed Madoobe qaaday inuu u dawladeeyo oo yiraahdo aniga tayda soconaysa taaduna socon mayso taana ma aqbali karo aad iyo aad baan idin salaamayaa idinka ka garnaqi doonaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh